konton iyo lix guuradii ka soo wareegatay barkii gobolada waqooyi ee Soomaaliya ee hadda la magac baxay Somaliland ay ka xoroobeen gumeystii Ingiriiska ayaa munaasabad lagu xuseeyay 26 Juun xalay lagu qabtay aqalka dawladda hoose ee magaalada Muqdisho. kooxda fanka qaranka gobolada Waabari ayaa heesaha ku tusaaleyntu ah xornimada qaranka Soomaaliya madasha ka qaaday. shacab badan oo u jalbaysan maalinta 16 Juun oo calanka Soomaaliya ku soo labistay badankood ayaa ka muuqanaya halka munaasabada ay ka socotay. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya xubnaha labada gole ee dawladda saraakiisha ciidamada dalka madaxda maamulka gobolka Banaadir iyo shacabka ayaa goobta ku wada sugnaa. General Jaamac Maxamed Qaalib oo horay dawladii hore xilal kala duwan ugu soo qabtay ayaa tilmaamay taariikhda fog ee ummadda Soomaaliyeed iyo halgankii Soomaalida ay u soo martay xornimada dalka. hargeysa intii aragtay waa aragtaan filaya dadka badankiisu hadda waa magaalada oo dhan baa ka dhisantay laakiin halka raadiga hargeysa yahay iyo magaalada inta u dhaxaysa way banaanayd buur bay ahayd iska banaan marka buurtaasaa laga taagay boorar laga dhisay birax dhammaanteed oo calanka la saaray markaa la saaray oo calanka Soomaaliya inkastoo heshiisku aan weli sharciyoobin siyaasiyiintu heshiisay oo jaraa'idka lagu qoro la yiri waa la israacaya marka labada dhinac ay xoroobeen laakiin marka weli rasmi ma ahayn hase yeeshee siyaasiyiinta Soomaaliland waxay soo qaateen calanka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cumar Carte Qaalib ayaa si qiiro leh u sheegay in Soomaalida aanan kala go'i karin waxaana dadka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay midoobaan. dalka Soomaali baa ka talinaysa Soomaalida keenaysa midnimadeeda iyo adkeynta wadawada ka talinaysa cidi ma laha ajnabi ma laha dadkana ma laha innaka ale kaa hortaan faham yaale dalka Soomaalida kaa hortaan faham taladeeda yaale Soomaalida taladeeda hadday hore u soconayso iyo hadday dumayso yaale innaka ale naga rabo Soomaalida naga rabo marka taan doonayna ka badan waa maxay xorriyadda saynu keenay inaynu nabadda keenno dawladda adkeyno oo aynu hore u soconaado taa way xukuumaddan intii ay joogtay 4 sano ugu dambeysay wax badan baa la qabtay lama arko lama qiro maanta waxaan doonaynaa laga bilaabo maanta inaad qirtaan wixii laydin qabtay waa halkanaynu ku jiraa hoolkan imakaanu ku jiraa ma jiray 4 sano ka hor waa maya ma jirta nabadda halkan ka jirtaa waddanka magaalada ka jirtaa ma jirta maya weeye maxaa yaa keenay iskama yimaadaan yaa keenay waxaa keentay dawladda waxaa keenay dadaalkii baa keenay marka waxaa la rabaa waxaynu ka baranaynaa xorriyadda qaadashadeeda waa maxay inaynu dawlad u baahannahay una baahannahay inaynu hore ugu soconno si aynu caalamka uga mid noqono waa taawayta madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isku duubnida dadka Soomaaliyeed iyo siyaasadaha ka dhex jira sheegay waxaana uu shacabka Soomaaliyeed ugu hambaliyay 56 guuradii ka soo wareegatay markii gobolada waqooyi ee Soomaaliya ay ka xoroobeen gumeystii Ingiriiska. 56 sano ayaan caawa u dabaaldegayna 56 sano 26 sano oo kamid ah 26 sano oo kamid ah waa duruufaha gaarka dhibka badan waayay aan ku jirnay 30 sano waa intii dawladda aan ahayn oo dawladdeedu ay taagneed oo ay shaqaynaysay marka waxaan u dhownahay inaan intaan dawlad lahayn intaan dawladda ama naga liidatay ama naga maqneed inay isku mid noqdaan aan ku dhownahay marka safarka aan dawladnimada ku soo celinayno inaan dheereyno oo aan xoog badan iyo juhdi badan iyo dadaal badan aan gelino ayaa looga baahan yahay oo aan ku hadino oo aan ku dhaqsano aad iyo aad mahadsantihiin hambalyo dhammaan dadka Soomaaliyeed ciid wanaagsan 26 Juun calanka Soomaaliyeed waxaan Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya waa nooshahay laakiin waxaan leenahay ha midowdo oo ha israacdo marka saacadu ay soo gaadhay 12 saacada dhexe ee xalay ayaa banaanka aqalka dawladda hoose ee Muqdisho laga garaacay astaanta qaranka waxaana la saaray calanka ummadda Soomaaliyeed.
cabdicasiis ibraahim axmed okey tv-ga universal magaalada muqdisho.